halkani waa garoonka ay diyaaraduhu ka hadaan kana soo degaan Cigaan International Airport dadkan badan ay isku jiraan mas'uuliyiinta dawladda xildhibaanada iyo xisbiyada mucaaradku waxay diyaar u hayeen soo dhaweynta wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland Muuse Ibrahim Salaf oo muddo ku maqnaa dalka Ingiriiska oo maanta ku soo laabtay dalka waxa ugu horreyn madashan lagu soo dhaweynayay wasiir ku-xigeenka ka hadlay xildhibaano siyaasiyiin مسؤولين كتر سن دولة يهوينها سوماليلاند عقال يمرت شرفتي كلا سو دوسي وحنا الله وجبرين وسير كحيانك وفضي حلك الله يجمضي هذا الكلام ما بدنا وتشددنا وحوين إنه موسى كسر دوينه ودن كه بدنا رمو مغنين ودن كنا وحوي حقوق قلبوي هاي شقدنا إنما هتيجوا الرئيسة وحوي وقبته حلال هراوجه الرئي ذلك سوماليلاند بوحكو برتاي سقو كردنا shaqooyin badan oo waaweyn oo xukuumadan iyo wax weeye hawlaha dalka ka jira uu ka soo qayb qaatay ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay xilka u fududeeyo soo dhawow dalkaagi iyo dadkaagi iyo xilka culus ee qaran ee uu madaxweynaha qaranku ku igmaday runtii Muuse waa nin aqoon-yahana waa nin karti badan waa nin ka soo bixi karaya xilkan iyo xil kaleba guud ahaan dadweynaha faraha badan ee maanta halkan ku soo dhaweeyna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu xilka ku asturo madaxweynaha waxaan ugu hambalyeeynaa inuu dhalinyaradii iyo da'yartii aqoon-yahanka ahayd imaka uu ka soo dhigayo uu ku bedelayo dadkii hore beeshan garoobay hambalyo ayaan leeyahay dalkaaga iyo dadkaagana ku soo dhawow Muuse waynu ugu ducaynaynaa xilka in ilaahay ku asturo وانا nin xilkan iyo mid ka si muhiimsan ba qaban kara aad iyo aad ayaan waxaan marka ugu horeeyay horta u mahadnaqayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo gartay inuu magacaabo Muuse Salaf oo ah nin dhalinyaro ah oo tacab badan soo galiyay xaqiiqatan sidii uu ku soo bixiyay madaxweynuhu Muuse aad iyo aad baan saaxiib u nahay waa nin wax badan ka bedeli doona insha Allah marka uu yimaado xagga siyaasadda iyo xagga kale iyo xagga aqoon-yahankaba insha Allah waan ku duceeyay mudane madaxweyne thank you maqsi waliba waxaan hambalyo gaar ah u dirayaa wasiirkana ilaahay xilka kugu asturo baanu leenahay Muuse ku soo dhawow dalkaaga iyo dadkaagaba aad baan runtii soo dhaweynaynaa walaalkeen Muuse Salaf ku xulanayo ayuu ka mid yahay Muuse Salaf insha Allah waxaan rajaynaynaa maanta waa wasiir ku-xigeenkii maaliyadda bari ka maalin inuu wasiir buuxa ama wasaaradda maaliyadda laftigeeda uu ka noqon doono wasiir buuxa ayaan mudane Muuse Ibrahim Salaf waxaan leenahay wasiir ku soo dhawow dalkaagii hooyo dadkaagii iyo dalkaagii oo ku diyaara gacmo furan ku soo dhawow ilaahna waxaan ka baryaynaa inuu xilka culus ee madaxweynaha qaranku ku igmaday uu ku fududeeyo ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay mahadnaqayna madaxweynaha iyo waliba marti sharaftii kale ee ku soo dhaweysay garoonka diyaaraduhu ka hadaan kana soo degaan Cigaan International Airport wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland Muuse Ibrahim Salaf oo ku maqnaa dalka Ingiriiska oo maanta ku soo laabtay dalka waxaana hadaladiisa kamid ahaa madaxweynaha oo markuu ololaha ku jira aad u ballan qaadi jiray dhiirigelinta dhalinyarada oo ay kamid tahay mid kamid ballan qaadadiisii aanan filayana in ilaahay igu asturo xilka anigoo kamid ah saabalka dhalinyarada laga qaatay in ilaahay igu asturo xilka talabaad waxay la tahay wax kamid ah dhiirigelinta shaqaalaha dawladda goosof waxa weeye midaan ka shaqeynay dawladda qaar ka dad kale oo ila midana madaxweynuhu ku dhiirigeliyay taas waxay muujinaysaa in madaxweynuhu uu doonayo doorka dhalinyarada inuu waqti fursad siiyo chance siiyo walaa ilaahay waxaan ka baryaynaa amaanada iyo chance-kaaba ilaahay nagu asturo waad saddexaad waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha kala duwanaayay ilaa maalintii la magacaabay igu hambaliyay iyo kuwa ii duceeyay ilaahay waxaan ka baryayaa ducadooda inay aqbalo marka saddexaad waxaan u sii mahadnaqayaa dadweynaha faraha badan leh saaxiibada halkan isugu yimi ee isugu jira dhaqameedka saraakiisha dawladda siyaasiyiinta odayaasha intaas oo dhan waan u mahadnaqayaa waxaan filayaa waxaan u arkayaa inay tahay haweenka kala duwan waxaan u arkayaa inay tahay dhiirigelin lagu dhiirigelinayay inaanu xilkaana loo dhiibay si daacadnimo oo wanaagsan oo sida ugu wanaagsan ugu dadaalka badan aan u gudano waa calaqa macri sawir qaasar kamal television Kariel Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Idahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida